haddaba waa sidee xaaladda caawa ee magaalada caasimadda Muqdisho maxaa ka jira in madaxweynihii hore ee dalka Shariif Sheekh Axmed iyo markaasi xubno ka socda dowladda federaalka oo wada hadal xilligan ku dhaxmarayo guriga uu ka degan yahay degmada Cabdicasiis ee markaasi gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda Muqdisho maxayse tahay in markaasi dowladdu ku doonayso inuu dib uga laabto waa markaasi madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed aagga uu ka soo guuray ee raboorka agtiisa ee magaalada caasimadda Muqdisho soo dhawaada daawadayaal waxaan idin wadaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay iyo xiisadda cakiran ee xilligan ka jirta magaalada caasimadda Muqdisho kadib markii Xasan Cali Khayre laga saaray gurigii uu ka deganaa waa aagga madaxtooyada halkaas oo ciidamada dowladdu ay warar kala duwan ay ku qaadeen galabta ilaa markaasi xalay rasaas goosgoos ayaa laga maqlay guriga uu degan yahay madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed oo xilligan ku sugan xaafadda oo markaasi Mirinaayo ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir xubno markaasi kamid ah odayaasha dhaqanka ayaa xilligan waxay ku sugan yihiin guriga uu degan yahay madaxweynaha hore Shariif Sheekh Axmed oo xilligan ka wada waan siyaasadeed ay ku doonayaan in lagu soo afjaro dagaalka markaasi ka soconaya ama xiisadda markaasi ka cusub magaalada caasimadda Muqdisho Shariif Sheekh Axmed wuxuu ku adkeysanayaa in markaasi uu guriga sii deganaanayo halka dowladdu ay amartay inuu dib uga laabto oo markaasi aagii uu hore uga soo guuray Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka waxa uu sheegay in markaasi uu halkan uu ku sugnaanayo waantu u dhaxaysa labada markaasi waa labada dhinac ayaa cirka isku shareeraysa iyadoo markastaba laga cabsi qabo inuu dagaal halkaas ku dhaxmari doono beesha caalamka ayaa cadaadis saaraysa xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo dhanka kale waa dowladda federaalka waxayna ku amartay in markaasi la joojiyo colaadda xilligan ka taagan magaalada caasimadda Muqdisho iyadoo markaasi dhawaan laga saaray Xasan Cali Khayre guriga ay ku weerareen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya dowladdu waxay sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ka furatay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo dhawaan ay soo bandhigtay asaatay wararka qaar ayaa tilmaamaya in hubkaasi uu yahay hub ay markaasi dowladdu leedahay waa sida xogaha qaar ee nagu soo gaaray ay markaasi tilmaamayaan Xasan Cali Khayre wuxuu markaasi dib ugu laabtay ayaa leeyahay guriga hore uga deganaa magaalada caasimadda Muqdisho ee aagga markaasi xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka ee markaasi ku sugnaayeen dagaalkan aad u qaraar oo markaas lagu qaaday ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre waxaana ka soo muuqan siyaasiga lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabshukuur Warsame oo markaasi xubno markaasi sida weyn mucaaradka ula socday sidoo kale waxa markaasi xubno kale oo Cabdi Qaydid ku jiro oo siyaasiyiinta mucaaradka oo markaasi aad uga soo horjeeda dowladda federaalka ayaana dagaalkan lagu arkin halka ayna dowladdu ayna wali markaasi ay si rasmi ayna u sheegin ujeedada ay kala heed dagaalkan ay ku qaaday ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre caawa hadda Xasan Cali Khayre gurigiisa waa loo kala tagay xilligaana waxa markaasi ay dowladdu ay sheegtay saacado kadib hadii uu markaasi uu dib uga laabo waayo Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka in markaasi weerar lagu qaadi doono kadib markaasi hadii uu dib uga laaban waa halka uu ka degan yahay aagga Mirinaayo ee degmada Cabdicasiis ee gobolka Banaadir Shariif Sheekh Axmed waxa uu sheegay inuu xilligan uu gurigiisa deganaanayo oo halkaasi difaac adag uu ka samaysan doono oo isla markaana uu iska difaaci doono hadii xubnaha siyaasiyiinta ama iraada dowladda federaalka ay weerar ku soo qaadaan Mahdi Cumar Moomin taliyaha ciidanka booliska dhawaan hadlay waxa uu sheegay in 2 saac kadib ay markaasi weerar doonaan ama weerarkii labaad ay soo afjari doonaan ciidamada dowladda hadii ayna markaasi soo dhiibin waxa uu sheegay ilaalada markaasi iraada Shariif Sheekh Axmed ay soo dhiibin in markaasi ay weerar ku qaadi doonaan haddaba xiisadda cakiran ka jirta gudaha magaalada caasimadda Muqdisho iyo waxyaabaha ka soo kordha iyadoo xilli waliba la filan karo inuu markaasi dagaal u dhaxmaro xubnaha siyaasiyiinta mucaaradka iyo markaasi dowladda federaalka halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa